وما ستهاي هرتا واحد هتستا مركان واحد بيقول لابتو لما كي يكون سجال بقول سجاشن إلا بدي إن سوماليا أولاً يكاد على معلول أذو باسن يدو يكون دجال من سوماليا هو جامي كحياديو دولة علم هذنا أودي أي ويقنتي أو ويقجنا محل فرح جديد أو مركزها قدامي أو يو إس سي مريكا كمركز قرار قاطي إن سوماليا وبدباديو معلوش كجيت أولاً كوفرت الصومال أنا وبدنت إن كسبرتمه أي حاجة كجري وأنا سنة كوفرت أولاً marka December 2020 kun sagaal boqol sagaashan labadii waxa magaalada Muqdisho hal mar habeen madow soo degay ka badan 30,000 oo askari oo ciidamada Mareykanka oo ciidamada badda kuwaas oo gargaarkooda wata arintaas waxay keentay isla markiiba in waxa laga baqay inuu Cali Mahdi wal ogaan soo dhaweynayo laakiin waxa laga baqay Aydid inuu diido ciidamadaas oo meesha dhibaato ka dhacdo laakiin isla habeenkiiba Aydid waa hadlay wuxuu soo dhaweeyay ciidamada faraha badan ee Mareykanka ka socda ee gargaarka u socda wuxuu ahaa howlgalku waxa la oran jiray Operation Restore Hope ama howlgalkii rajisoo celinta marka ciidamada soo yimaadeen Mareykanka bas ah markii hore waxay kadib hadana waxa ku soo darsamay wadamada Yurub ku soo darsamay automatic hadana markii sanadku dhamaada waxa la gaaraba waxa loo xisibtay United Nation ayaa ciidamada la wareegay marka ciidamada Mareykanka ah UNITAF la jiray markaas kadib waxay qaateen magaca UNISOM ay qaateen marka oo United Nation Soomaaliya marka ayadoo ay socoto hawshaas oo gargaarku socdo oo koonfurta Soomaaliya Baydhabo iyo Xudur iyo Waajid la geeyay magaalada Muqdisho la geeyay meel walba la geeyo oo raashin laga qaybiyo ayaa waxa dhacday Mareykanka iyo waxa isqabtay Aydid xogaa siyaasadda la isku maang jiray marka Mareykanku 5 June 1993 waxay weerareen Reedii Muqdisho markay weerareen waxa lagu weeraray ciidamada Mareykanka iyo ciidamada Malaysiyaana iyo ciidamada Pakistan markii meesha la weeraray dadkii ku soo xoomay waa kala tageen marka waa la kala raacday Mareykanka iska careen markaas dadkii marka weerarkaasi wax oo dhibaato kama dhacay laakiin markii weerarkii dadkii kala Mareykanka meesha ka baxay iyo Malaysiyaanki ayaa askar Pakistan oo gargaar qaybinaysay magaalada Muqdisho oo meel kasta weerar lagu qaaday 25 askari markaas la dilay oo Pakistaaniyiin 25 askari oo Pakistan kala dilay UN waxay u saareen inuu mas'uul ka yahay General Aydid Allah naxariista Aydid la wadiid hatta inuu ka garawaadiid maadaama dad badan la leeyahay Soomaaliyeed arintaas waxay keentay UN ku fariisto oo la gaaray qaraar lagu soo qabanayo General Maxamed Farax Aydid ama lagu soo dilayo ama cid kasta oo la yiri cid alle cid soo sheegtay meeshu degan yahay ama meeshu ku hido ama meeshu saxdo waxa la siinayaa $25,000 oo dollar waagaas joogtay ama $25 milyan oo kala hadlay arintaas waxay keentay in Aydid uu mashaqalo oo safagaarayaasha Trabonka marka Trabonki waxa laga bilaabay barnaamijyo la bilaabay lagu taageeray General Aydid oo laga soo riday UN ka dhan ciidan fara badan Talyaaniga Jarmalka Ingiriiska kuma joogin wax yar ka joogay laakiin ciidamo ugu badan Saudi Arabia Imaaraadka Kuwait ciidamo badan oo United Nations hoostaga Faransiiska ayaa joogay magaalada Muqdisho magaalooyin badan oo Soomaaliya kamid in koonfurta u badneed marka waxa dhacday maadaama Aydid uu dhuumasho ku jiro ayaa oqaashi SNA oo ka koobnaa 4 urur USC SSNM oo dira SBM oo ogaadeen iyo SDM oo raxan iyo USC hawiye afartaas marka ayaa shirkaaheed oo Aydid oo madax ah SNA marka arrin looga tashanay marka arrimaha macnaha soo kordhay ayaa waxa lagu balmay guriga ku yaal hadda doqonta ka dhacda sheegaysi oo ku yaal Cabdi Qaydid uu leeyahay Digfar Actis وهذا هويج حمر مع سكول كلي هي SOL مسارد ستارك مسارد قولوا كل دقيقة قولوا إلى هذا السيسي واحد تقينت مالك سلوك استقال السنة كهر إلى يومنا هذا واحد يعترى الله مسامح مالك كاسمرك ماشي معاك السعودي سيدي أضياش يقول كلن كاس عيديد مجوجي هبين كاس على بالله ماي مريكا كمرك وحيل الأخبار إن كلن كعيد كسوق يبقلي والسي ورك شيريان مرك مريكا كوحد قاسي مركا ما دام عيديد وماشي تجيو وننت يدي هاي اللي ماشي قدر نبغى نسمع ديارها مريكا أو نوعية كلا الدول نوع على يقانو AC بقول صدام أو أنا لا أكون أقول هذا كل مغلوب ديار مذوب ديار أو دقينا وقاري يقول بكرناه أيا واحد دقيسي برتي جورو كسعدي مركا جورو سدح دبق لبض وها واحد ما دام ديار ويبكو واحد يكون في الجرنجرة يكون في المركا سي معناه اللي سجد دوري أو عن لوبود بودين مركا عقاشة يسياسيين توحي ولي سراكيل بدنا ولي أو صوماليات مركا أو إسنا كترسن مركا اوتوماتيكلي السراكيش ما دام يتهبر كقضياش كتهبر في عينه الأردن سراكيش أود بدن سراكيش ماشي كل ما تي ويأدي داقله كبودين ومركز دقينت كواد جرانجرة دقينت جرانجرة كلهم في أي أركان دقينت تا حدنا ديارده كوبره يبلاك هوك داون ديار اللي هذا أو أمريكان كلها يحمل قادة عسكرت قادة أي جوري هرك استعجب قفك صباح ما حبضر الولد فنيه ديار ده مركز دنا واحد سوي على سي دقين كله مركز ماشي وحكى داعي
mucjisa ka dhacday odayaashii meeshii inta iska daawareegay maadaama ay odayaal daa iska hayaan meeshii marka duqeyn weyn ka dhacday waa dhiigii iyo carankii baabuurta meesha ku jirta baakinka hal baabuur xataa kama fiigin marka iyaguna gantaalada lagu dhiftay waa la duqeeyaa gantaalka lagu dhiftay cabdinaasir marka tirada gudaha ku jirtay marka laga soo tago saraakiisha ay sheegtay inay ciidamada ahaayeen oo ay darbiyada ka booday odayaasha gudaha ku sugnaa iyo tirada guud ee goobta ku sugnayd ama shirka ka socday ma la hayaan xaqiiqatan lama hayo laakiin saraakiisha fakatoo kale cabdi qibda kama senatarka uu fadhiyay shirka uu ka booday shirka ka booday cornel yara noor taqsiina ku jiray nin kale oo shabeelle shahada inta ku jiray isna jarnaal ahaa rag badan saraakiisha inta badan way boodeen laakiin waxaa meesha ku baabay siyaasiyiintii iyo odayaashii ayaa meesha ku baabay tirada marka odayaasha dhaqanka geeriyootay imise waa inta geeriyootay oo galabtii ilaa hilbihi la soo gurayay waxay ahaayeen 75 kaas waxay isugu jireen marka waxay isugu jireen ciidan iyo oday dhaqan iyo siyaasiyiin isugu jireen waxa ugu caansanaa dad badan oo caan ku jiray waxa ku jiray ninkii SSNM ururka SNM ninkii hogaaminaya ku jiray Dr. Cabdikariin Sheekh Yusuf la jiray Carabeed oo ku dhintay doqoyntaas ku dhintay waxa ku dhintay la yiraahdo Cabdiqaadir Dhololo isna siyaasiyiinta USC kamid ahaa waxa ku dhintay Allah afkaaga baleeka nin la yiraahdo Afshirka haye oo goboltooraha gobolka Bay ahaa jiray oo ah ninka gobolka Bay dad hadda lagu xasuusto oo waxa laamiya magaalada dhanba magaaleeyba oo magaalo waxa isku rarana marka jidadka u bixiyo oo dhan waxa kamid ahaa nin la yiraahdo wiilka yarka ah ee gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiqaadir aabihiisa kamid ahaa waxa la jiray maxamed xasan qojaal la jiray isna wuxuu ahaa nabadoon weyn oo ahaa waxa ku jiray nin wariye oo caan ah oo ka tirsan wariyaasha reedii Muqdisho oo la jiray maxamed cabdi afgooyi oo caan ah oo siyaasadda laga bartay eryadan qariska Turkiga markii uu rasiir raadiyaha markuu sheegay xataa waa strange dagaalkii Ciraaq oo aad u soo caanbaxay isagoo markaa jaamacadda ka soo baxay marka isaga marka shirka muxuu ugu sugnaa ma kulay waa tabinti inuu u joogay wuxuu ka shaqeynayay idaacadda codka shacabka oo marka reed Muqdisho aad oo cid gacanta ku hayay codka shacabka markii la jiray meesha ku shaqeynayay marka dhibaato waxa ka dhacday meeshaas aan caadina way cabdinaasir waxa ii sheegtay maalinkii dhacdadu ay dhacday in aad goobta tagtay oo aad booqatay haddaad sawir guud ka bixiso sidee u ekeed meesha xaalad noocay noqotay markii duqeyntu ay dhacday odayaashii meesha lagu laayay oo dadkiina ay wadiimaadeen aniga waxaan deganaa shirka la deganaa markaas markii loo sheegay odayaasha la duqeeyay shirkan aan xal aweyn shirka waliba waxa lagu baaqay markii hore waxa lagu ballamay guriga Cabdiqaas degan yahay oo u muuqata meesha dagaal ka dhacay marka dad badan baaqdaba oo guriga Cabdiqaas fadhiyay markii duqeynta ay dhacaysay markii ilaahay maajid dad badan meesha ku fakaday marka waa soo dadka soo ordan kamid ahaa goobta markaan imid waxaan soo dul istaagay afarta wariyo oo Reuters la dilay waxay u shaqeynayeen wakaaladda wararka Reuters laba waxay Ingiriis laba waxay Kenyaati kaameramanadii iyo wariyaashii oo ka soo caray marka hotel saxafi ka yimid oo degan hotel saxafi waa hotelka ku kulmaan wariyaasha oo dhan oo magaalada Muqdisho jooga marka maadaama duqeyntii maqnay waxay tahay dhacdo soo duuba dhacdada ayagoo duubaya dad marka haraysan oo aqlama jirin macnaha rekorkaas dimaantii hilla wax weyn la qabalaha macnaha magdhoweyna wax laga helaha Mareykanka iyo United Nationska wixii meesha ka dambeeyay oo dhan marka wariyaashaas meesha lagu laayay oo aad sheegtay in hotelka saxafi ay degnaayeen saddexdii dhacdadii rabay markay inay soo tabiyaan ha way inta way record galayeen marka dadkii masaakiin dadkii maxkamad garatada ahaa dadkii maxaa loo adeegsaday dilkooda marka rasaas miyaa loo adeegsaday rasaas iyo faas iyo toori waxa loo adeegsaday male afarto meesha yaala afreena labana inay Ingiriis labana inay Kenyaati laba afarto Reuters u shaqeynayeen afartii oo meesha irida la dhigay oo meydkoodii laamiyada dul saaray ayaan ku istaagay waa gudbay gudahan galay baawartii waxaan arkay la wada duqeeyay markaan jaranjarada saas u istaagay waxa ay hor yimid dhiig iska qalqulaayay dadkii ma la kala garan karo madaxa go'an iyo caloosha go'an waxaan qaraac macna waa ka caburmaba saski aan ka qaaday waxa u malaysaa aftaaxow muddo 2 bilooda ana qolka aan shirka la ka deganaa guriga aan deganaa waxa ka soo urayay dhiig macna urti aan meesha ka qaaday kale dhawaato meesha ka dhacday marka waxay ahayd arrin aad adduunka dhan u cambaareeyay Mareykanka isagoo UN-ka ku jira ciidamada inta badan waxa la yiraahdaa US Union Somali jiray laakiin waxa ku magaca UN-ka ku qaraabanayay laakiin wuxuu ahayn ciidamada Mareykan oo kaliya isaga muxuu u sababay marka Mareykanka xilligaas duqeyntan uu u geystay goobta odayaasha ay ku shiraayeen sababta duqeynta ay u geysteen maxay ku sheegeen macnaha waxay ku sheegeen waa cadawgoodii waa cadawga kaliya ilahay meesha xamar dagaal badan ka dhacay dagaalkaas dagaal badan ka wareeyay kana dambeeyay marka bartilmaameedka wuxuu ahaa kaliya Xuseen Ciid janaalka marka mana hubino janaalku meesha ma joogin
warar kale waxay sheegayaan in jananka la ogeysiiyey leer meeshaas ku tagi maadaama khilaafka ogan wuxuu ka jirayba ciidanka UN ka dhexdiisaba Talyaaniga oo kale Sacuudi Carabiga oo kale Imaaraadka oo kale Kuwait oo kale waxa lagu xaman jiray inay ahaayeen dadka macnaha wixii lagu heshiiyo hoosta ka dhiib u soo sheegi jiray macnaha Talyaaniga oo kale marka inuu xogta hoos ka soo disiyay oo Ciidiid jiran Ciidiid uu sheegay in meeshas kulanka oo ka dhici rabo la duqeyn doono sidaas isaga baaqday ma jirta arintaas waa la sheegay laakiin mana warar kale saddex maray magaalada waagaas ay ahayd Bruno Loi ayaa la jiray danka xukuumadda ciidanka Talyaaniga wuxuu ahaa nin aad uga soo horjeeda dagaalada ka dhacay magaalada Muqdisho waxa hasta Talyaaniga waxay ku dagaalameen iyo SNA waxay ku dagaalameen Hurwa marka saddex qof oo Talyaani laga dilay ciidan marka Talyaaniga la dilay marka Talyaaniga abarjoos ka bixiyay asiga saddex nin laga dilay ayuu hadana wuxuu dalbaday wadahal oo dadka la galo SNA Ciise Maxamed Siyaad hogaamiyay arrimaha dibadda ah meesha wadahal kula galay marka xirfadda ka dhaxeeyay sarkaal Mareykan inta hadla waxa yiri waagaas anoo saddex askari laga dilay sarkaal inaan wadahal ma baqaateen ba aniga marka Bruno markuu jawaabay wuxuu yiri aniga 300 sano ka hor dhaqan jiraan ilaalina marka aniga taas oo u dhiganta macnaha 300 sano ka hor Mareykan ma wajirin ba marka Mareykan dhexdiisana iyo UNISOM khilaaf uu jiray laakiin waa warar run noqon kara been noqon karta way 93 marka dhacdadu ay dhacday kadib dalka marxalad kale u galay arintaas dhicitaankeeda maxaa saameyn oo aad noo sheegi kartaa ayaa ka dhashay runtii horta arintii way sii socotay tarbuunka ayaa wuxuu ahaa bartilmaameed every morning subax ilaahay kaana tarbuunka la soo ma jiro from Hurwa ka soo balo dadka lagu soo qaadi dadka in Traaya lagu soo qaadi dadka si looga soo horjeedo go'aanka UN ku baacsanayo General Maxamed Farah Ciidiid kaas oo wanteed ayaa mararka qaar wax imaan jiray tarbuunka oo ka soo hadlay oo ka soo qayb gali jiray waxa kale oo dhibaato jirtay oo horumarka ah saaciday dadkii masaakiinta ee degan magaalada Muqdisho wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Kuwait oo kale waxa laga markii duqeyn dhacdo meel la duqeeyaba at same time meeshii gargaar ay jireen marka waxay ka soo horjeedeen siyaasadan awoodda badan ee dawladda Mareykanku ay rabtay inay ku caburayso dadka Soomaaliyeed ayadoo arrintu saasi socota ayaa haddana waxa dhacday dagaalkii 3 Oktoobar oo ah dagaalkii ugu weynaa ka dhacay magaalada Muqdisho oo socday muddo 16 saac oo xiriir wuxuu ka dhacay Olympic hotelka Olympic ee Bakaraha ku yaala eridaas daabshil meel ku jirtay guri ay ku shirayeen marka saraakiil SNA ayaa waxa loo sheegay haddana in Ciidiid ku jira meesha war lagu qaaday kulay saraakiil badan meesha Cabdi Qibda kamid ah meesha laga qabtay iyo nin leeyahay Umar Salaad iyo rag kale oo SNA yar Cabdi Xaash la jiro asna daala ka shaqeey jiray meesha laga qabtay sideedna meesha laga qabtay marka waxa qabtay Mareykanka qaaday way soo degay ay ku soo degeen waxa dhan xisaab gareeyeen waxa meesha saartanba ismaacaata kamid dadka la qabtay oo la qabtay tarbuunka la qabtay oo la xiray marka hawshaas jirta dagaalkaas marka oo 3 Oktoobar dhacay waxa lagu dilay 18 askari Mareykan ku dhawaad 100 askari way dhaawaceen dadka Soomaalida la dilay xisaab male waa boqolaal marka dagaalkaas wuxuu soo afjaray dagaalkii UN ku hayay General Maxamed Farah Ciidiid waxa jiray qodob oo article oo UN ka diiwaan gashan oo la yiraahdo 837 waa qodobka macnaha lagu xukumay Ciidiid in qof alla qofkii soo sheegay ama soo dila la siinayo $25,000 qararkaas maalinkaas laga laabtay dagaalka Oktoobar kadib laga laabtay oo la yiri Ciidiid in lagu soo waxa laga maarmaan wuxuu yahay nabad ku soo Soomaaliya markaas waa in laga qayb geliyaa wadahadalada Soomaaliya marka shirkii ugu horeeyay isaga loo qabtana uu ka qayb galay safiirka Mareykanka iyo Cabdullaahi Yusuf soo doonay oo garoonka diyaarada magaalada Muqdisho diyaarad khaas ah looga qaaday iyadoo waliba diyaaradaha Mareykanka diyaarada ay waardiinayeen waliba oo laga baqayay in qolo kala disho marka saas uu ahaa dagaalkaas marka wuxuu soo dhamaaday 95kii markii dhibaatadii Mareykanka wax ka qaban waayay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho Ciidiid ay marba isku dhacayaan Mareykanka wuxuu go'aansaday UNISOM in dalka dhan ka baxaan bishii Maarso marka laga baxay Soomaaliya dhanba garoonka Muqdisho ka duuleen maraakiibtooda keensadeen markaas ka holaleen howlgalkii marka meeshaas ku soo gabagabay howlgalkii marka way maadaama sheekadina ay ku tacaruday dhacdadii dhacday 1993 dhacday dhacdadaas dadkaas odayaasha ay 75 gaar lagu laayay Mareykanka ma ka garaabay wax ma ka dhowna ma ka bixiyay ma حتى وحد جدي حتى أنا ويرادي ضد محناها وحلناي أضيال ما ضوق قالة وحي شاقين إن ضد كي سياسيين تي SNA وماشى كشري وشرقال وذي إن يتخيل وحي وذي معناها وحي ضد كي دباتك ودين وكور تجيب دباتك ولا وهر تجيب مرك أنت صحيح عادي مركي ضد كي ميت كي قلبتي لك الجريوة إلا واحد الجاري كوي تونسا حبل وضريد أو تربون كتالا أي الله واسي شنو دباتك قفبة
ماشي لو قمك عبدالي غبورها عبد الرشيد تربونك عبد الرشيد عشان خبريسي ماشي قدوين لو قضي مركز 11 ليش جسيو 11 سو قادين اي دك لو اسي هذه ارنتي مخرج كسو لما تادي marka raadi adka shacabka sanad wala marka la gaalay 10 gululi waa laga xisbi jiray magacyada la sheegi jiray khudbada caydidna waa la saar jiray marka hal jiray waa dakana u taala dawladda Mareykanka ilaa yoomina hada cid Mareykanka kala xisaabtantay oo Soomaaliya ma jirto shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha